dad badan baa waxay isweydiinayaan Iran waxa weerar waa Israa'iil iyo Mareykan. Israa'iil iyo Mareykan intii ay aadi lahayd maxay ka doontay wadamadan Carabta oo iyaga ah masaakiin gacan uga bada. Arrintii waa runta warbaahinta adduunka oo waxa dhex marayo ama gaar ahaan Carabta waxa dhex marayo hadii meesha laga soo weerar Mareykan iyo cid weerartay waa Mareykan iyo Israa'iil. Laakiin Iiraaniyiintu dhanka kale iyaguna waxay ku doodayaan waxay leeyihiin waa run laakiin hadii markabkiisu madfic meesha laga soo tuuray Carabta oo adiga agtaada yaalo oo raadaarkii aniga waxaan isticmaalayo idil soo sheegay adiga agtaada u yaalo oo sahaydi iyo shidaalkii iyo waxa adiga agtaada ay ka baxayaan amba madaaficdi ay taalo si marka qarkood la sheego aniga sidee baan aan madaaficdaas ka dhaafi karaa adiga qof aan kuma hayso laakiin saldhigga meesha tan ku yaalo oo dhabarka kugu hayo oo biyaha iyo raashinka iyo asiinaysid oo space-ka asiinaysid hadii aan daay hada dagaalka waa ugu soconaya sidaas daraadeed dagaalkii waana yiri madaxweynaha oo Iran ama dhaweydii dagaalka aan khaliijka ku hayno ama meelaha kale aan weerarayn Urdun oo kale nagama ahan inaan wadamada Carabta weerarno laakiin saldhigyada iyo qalabka iyo agabka oo ay yaala meeshaas anaga aan cadowlana alxaasil dagaalkaas waxa waa inuu san bilaaban oo aha haddana wadada kale ka furan waa in la isaajiyo Iran waa dal weyn waa dal fac weyn wadamada la diraayo oo way ka taariikh weynta البحنمada beershiya Mareykankana way ka taariikh weyn tahay Israa'iil way ka taariikh weyn tahay marka labaad sodanayna isahayaan dagaalka doomaada dal Iran la yiraahdo jiray dagaalka doosan dal Iran yiraahdo jiray intaanu bilaaban dal Iran la yiraahdo 92 milyan oo waxa ayaa meesha degan oo ku sii fiirsan wadamada dariska la sii ah oo cunsurka Iiraaniga ah beershiyanka meesha ku fiirsan yahay dagaal idil wuxuu ku dhamaan doonaa in la wada hadlo ku dhamaanaya laakiin wax lagu farxo ma aha maanta meesha wax marayaan